daawayaal ku soo dhawaada warkii caalamka qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona nabadoon caanaha lagu dilay maanta magaalada Muqdisho mid uga musharaxiinta qaranka Soomaaliya oo shaaca ka qaaday in loo dulqaadan doonin in dadka banaanbaxaya dawladda Soomaaliya ay xabsiga dhigto gudoomiyaasha baarlamaanka Soomaaliya oo maanta gaaray magaalada Garowe iyo dawladda Soomaaliya oo shaaca ka qaaday in dad wararka shirkadaha daabacaya dawladda Soomaaliya looga soo horjeedo inaysan daabici karin haddana ku soo dhawaada warkii oo dhan aanu ku bilaaban nabadoon caana ayaa lagu toogtay maanta magaalada Muqdisho nabadoon Cabdi Geedi Siyaad oo caan ka ah magaalada Muqdisho ayaa maanta kooxaha hubaysan oo bastoolada wata waxay ku toogteen degmada Daynile ee magaalada Muqdisho nabadoon Cabdi Geedi Siyaad oo ku sugnaa suuqa Daynile ee degmada suuqa Daynile ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa maanta toogtay kooxaha hubaysan halkaas oo ay iska baxsadeen nabadoonkan oo ku sugnaa xaafada ka tirsan degmada Daynile gaar ahaan xaafada lagu iibiyo xoolaha ayaa halkaasi waxaa iska baxsay kooxihii hubaysnaa kadib markii halkaasi ay ku toogteen nabadoonka oo meer ayay suuqaasi ayaa waxaa kooxaha hubaysan ay bastoolad kala dhaceen madaxa kadibna waxay iska baxsadeen goobta nabadoonkan oo ah nabadoonadii soo xulay baarlamaanka Soomaaliya ee hadda shaqeeya ayaa waxa uu caan ka ahaa degmada Daynile ee magaalada Muqdisho waxaana dadka deegaanku ay ka muujiyeen walwal xoogan nabadoonkaasi dilka loo geystay midowga musharaxiinta Soomaaliya ayaa waxay shaaca ka qaadeen in suurtagal ahayn in dawladda Soomaaliya ay xabsiga dhigtada ka banaanbaxaya gudoomiyaha midowga musharaxiinta ahna madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in aysan suurtagal ahayn in marnaba dadka banaanbaxaya dawladda Soomaaliya xabsiga dhigto waxa uu sheegay dadku inay ra'yigooda cabiri karaan taasuna ay tahay arrin suurtagal ah waxa uu sheegay in haddii la isu diido in la banaanbaxo ay dadku ay waxay rabaan inay sameyn karaan Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa waxa uu si kor looga hadlay ninkii shalay gabadha Soomaaliyeed bastoolada ku qabtay magaalada Muqdisho bartamaheeda waxa uu sheegay in dadka Soomaaliyeed hortooda la keenay ninkaasi uu yahay nin dambiila wastuu sheegay Sheekh Shariif Sheekh Axmed ninkan waa nin aan suurtagal ahayn oo dhaqankeena Soomaaliyeed iyo diinteena Islaamkuba aysan dhigaynin in qof muslina xabad madax laga qabto waliba aha gafar dumar waa soo sheegay Sheekh Shariif Sheekh Axmed waana in la keenay sharciga gudoomiyaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxay maanta gaareen magaalada Garowe ee caasimadda Puntland gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa waxa uu magaalada Garowe ku soo dhaweeyay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani halkaas oo uu u gudbiyay qasriga madaxtooyada waxaana madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu garoonka markii dambe ku soo dhaweeyay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ee hadda dhacaya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan waxa uuna ka hadlay arrimo dhowr ah sida uu sheegay oo ka tirsan doorashada Soomaaliya waxa baarlamaanka Soomaaliya ee hadda dhacaya 27 bisha December ay ku wada jirno la soo sheegay in dastuurka Soomaaliya hadda jira oo la dhacayo waxaana la soo sheegay in doorashada Soomaaliya ay hadda arrimo badan halkaasi laga hadlayo magaalada Garowe ee caasimadda Puntland dawladda Soomaaliya ayaa waxay amar ku bixisay in marnaba aan shirkadaha wax daabaca aysan daabici karin boorar looga soo horjeedo dawladda Soomaaliya shirkadaha daabaca boorarka ayaa waxaa lagu siiyay ogeysiisaa in dadka banaanbaxaya aysan u daabici karin boorar looga soo horjeedo dawladda Soomaaliya waxay shirkadahan u sheegeen inaysan suurtagal ahayn inay daabacaan waxaana uu sheegay inaysan suurtagal ahayn in marnaba la daabaco shirkada looga soo horjeedo dawladda Soomaaliya ama boorar looga soo horjeedo Cabdullaahi Axmed oo ka tirsan dadka deegaanka ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in dadka ay shirkadaha la siiyay ogeysiiskaasi waxa uu sheegay inaysan suurtagal ahayn banaanbaxoodan ay wadi doonaan waxaana hadaladiisa ka mid ahaa boorar ka daabacada birintarada wadanka mid ka mid ah subax hore abaar 11 ayaan maaragtay isku soo baxay anoo raba inaan boorarkaas daabacdo madbacadaha wax daabaca mid ka mid aan u tagay waxay u yiraahdeen imay waxba kuma daabici karno sababtoo ah annaga dawladda ayaa noo diiday inaan maaragtay dadka wixii mudaharaad ku saabsan inaan waxba u daabicin waan ka soo gudbay mid kale aan u imid oo iyadana ka mid ah madbacadaha kuwa ugu waaweyn si aan maaragtay ayagana aan iraahdo war ii daabaca aniga cidna ma caanayo cidna kuma xadgudbayno jas waxaan muujinaynaa aragtideena dad waxaan dhalinyaro xaq u leenahay xaq dastuuri ah noo daabaca barintaradeen fikirkeena noo daabaca warqadaha noogu daabaca
عندنا أفلقادنا معنا عندنا الدولان كمنين أنا institution دولة الدولان كمنين هيئة الدولة ومصر عنه ربشد مصر ما ينينه ما حنكو هذا ومدنا دعن وما نسعون كليه وحن كان ليني عبد الله أحمد ayaa intaas waxa uu ku daray in marnaba aysan joojin doonin banaanbaxayaashooda fikradoodana cabiri doonaan waxa uuna sheegay in ay meel ay ka keenaanba ay wadi doonaan banaanbaxayaashooda iyo waliba boorarka ay wataan guud ahaan warkii caalamka aad ka socoteen janna kaan kulanay absha jookar youtube ka wana intaas nabadgelyo